أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى عبادوين فربضان أيو إنه واجب يالي وإن أمرينا لا سمينه. عبادوين كاس وحاكم إذا عبادة الصيام أما عبادة الصوم. عبادة داس إلهي وحنو شيء سبحانه وتعالى إنه واجب إنه تهي ومدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت النبي قال لقصوا بالله إلى قيام الساعة. عبادة إنه واجب أي كتهي قف كسو يعني إسلام كرمية أما دين الإسلام كسوق لنا أما كل شنا مركي وقارو حل جذا إنه عبادة إنه لي مادو إنه واجب كتهي. رب سبحانه وتعالى وحكوله يا قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا سحقا حيث عبادة الصوم أما عبادة الصيام إن واجب كتهي ذاتك مؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة النبي محمد. وحينو شيء آياته هدنا إن أي واجب كو أهيد أمده إنه الرئيي مسلم كأها أنبياء يرسوش على صدره راعي جري الرومان جري. هل كم حكى قادنا هنا إن هين عبادة أمتنا خاص كأه بل عبادة لإنه الرئيي وأمده إنه الرئيي إن يتهي معها معنى هذا إن بشهر رمضان يصدم كذا مع الموت يساعد هذا إن يهيد. لكن عبادة الصيام إن يجرتي أما هكذا وأنا تتنا أما المذبحة نقطة بينوقع حيسا يعني آيات وخطاب إلهي سبحانه وتعالى والله الله يددك أهل إيمانك يا أيها الذين آمنوا. علماء وحيد يجري أما صحابة وحيد كسقناتي هدي القرآن كقاركتو يا أيها الذين آمنوا وندهاس وكسعد أهل الإيمانك فرع سمعك يعني صفي عن أوجودك رارعي وصفي عن أوجودك يسوع فإما خير تؤمر وإما شر تنهى عنه. إنه كوسو صعدو ويا أيها الذين آمنوا ذا يقدم بيسو وخير لو أمره أيو سمع لقوليه هاي أما وقدم بيو وشرعه ولا قارب هايو ولقوليه هاي كديرو أما كفقو أما دا تنهد ندها يا أيها الذين آمنوا وحقدم بيا أنا أمر لس أمره أيو وخيره وناقه ونعفي مصلحة أي أمده وجرته maalmaha la sooman yahay hala oomo hala gaajoodo hala daalo laakiin ajirka iyo thawaabka ka dambeeya ayaa ka weyn. saadaraad Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala isagoo oo la hadlaya dadka ahlu iimaanka taasina waa sharaf iyo tazkiyo ayay u tahay dadka noocaasa. ya ayuha alladhina aamanu kutiba alaykum as-siyam. kutiba macnaheedu waxa weeye waa furida waa la idinku farad yeelay yani kutiba alaykum أنا فرض عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. عبادة الصوم أيها الذي واجب علي والذي فرض علي. عبادة الصوم معناه وحويه يعني إن أيضتكو وحلا وحيسون كشبية أي قرآن كي سنة وإنه شيئين إن لقد يراضو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أنت أود حيسا يعني واو كلكو بريو أما صلاة الصباح وقت كذا كلكي لقادو إلى أي قرآن وقد عيسو مغرب كأه inta u dhaxaysa in laga dheeraado wax kasta oo soomka jabin haya taas weeyaan. ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. sidii loogu farad yeelay dadkii idinka horeeyay ee millada iyo xaniifiyada iyo islaamka iyo diinta idinka horeeyay. wuxuu ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala sababta iyo xigmadda ku jirta yani soomkani inayna ahayn dadku ha gaajoodeen iyo ha oomeen iyo ha rafaadeen inay ku jirto xigmad weyn oo ah in ay ka dhalato arrintaasi yani taqwa ilaahay subhanahu wa ta'ala inay quluubtii jilicdo in uu qofka dareenkiisii isbedelo inuu qofka masaajkiisii uu si kala noqdo. cuntada iyo cabitaanka يعني waxay qofka u kordhiyaan waxoogaa shahwi iyo yana dareen yana adduunyada xaggeeda inuu ku mashquulo ah laakiin kolkii uu soomo oo cibaadada noocaas uu guto
ruuxaaniyaadkiisa ayaa kor u kacahaya qofka, qalbigiisa ayaa nadiif noqonhaya, khushuucdiisa ayaa badanaysa, inuu ilaahay u dhowaado oo taqwada ilaahay ay qalbigiisa ku xasisho ayaa aada ugu dhowaanaysa. saa daraad ba alle wuxuu lehy subxana wa tacaala soomka natiijadiisa waxaa weeye in taqwo laga dhaxlo lacalakum tattaquun. lacaladana waa litaxqiiqi litaraji ma aha, waxa weye waxaa xaqiiqo ah haddii uu qofku soomka la yimaado sidii alle subxaana wa tacaala uu amrayna oo la yimaado inuu taqwo dhaxal siinhayo oo qofkaasi uu ahlu taqwa uu noqon hayo. ilaahay subxaana wa tacala haynaga dhigo dadka ahlu taqwada ee taqwada ka dhaxla. aayadda ku xigta rabbi subxaana wa tacala wuxuu inoo sheegahayaa yana litasliya, yana soomkani inuusan ahayn yana bilo fara badan, inuusan ahayn sanado fara badan, inuusan ahayn maalmo fara badan oo socon haya, ee inay yihiin maalmo kooban oo tirsan oo xadidan inay yihiin ayuu inoo sheegaya rabbi subxaana wa tacaala. markaasaa wuxuu leeyahay alle subxana wa tacaala ayaama macduudaat, inta la soomahayay waa maalmo kooban weeye, waa maalmo tirsan oo kooban weeye, ama waa 29 maalmood ama waa 30 maalmood. qofkii sunno ku darahaya isagay u taallaa ee ziyaadatu ajrin wa thawaab raadinhaya, laakiin haddii la yidhaha inta waajibka ah ama waa 29 maalmood ama waa 30 maalmood, sababtoo bisha yani hijriga ah ama bisha islaamiga ah yani labada tira unbay ku dhamaataa, inay 30 ku dhamaato iyo inay 29 ay ku dhamaato, mid kamida waaye. marka bishu ama waa 29 bay noqon ama 30, waa maalmo tirsan wey, waa maalmo kooban. soomada waxay tiraa wax kow la yidhi waa kooban yahay, macnaha waa dhammaadaa, turbo wuu dhammaanhayaa. markaas alle wuxuu lehy subxana wa tacaala ayaama macduudaat, waa maalmo kooban wey, ayaama macduudaat. markaasaa wuxuu inoo sheegay rabbi subxaana wa tacaala maalmaha macduudka ah dadku inayna isku xaalad aynan ahaan haynin, oo ay jiraan dad safrahaya, dad xanuunsanhaya, dad da-ah, yani dad uu soonka ku adkaanhayo mashaqii culays kala kulmi kara inay jiraan, kuwaasoo alle subxaana wa tacaala takhfiif usii kordhiyey. maadaama oo tirada yareynteedu ay takhfiif ahayd, baa haddana dadkii waxoogaa culays yana kala kulmi lahaa baa takhfiif kale oo labaad baa loogu sii daray. markaasaa waxaa layidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar. qofkii idin kamid ah ee safar yana ku jira ama safrahaya ama xanuunsanhaya oo mariid ah, yana qofkaasna waxaa u bannaan inuu afuro maalmaha safarka uu yahay ama maalmaha uu jiran yahay, oo uu maalmo kale oo uu caafimaad qabo ama uu muqiim yahay oo safarkiisii uu ka dhammaaday inuu soo celiyo soonkii oo uu dib u qadeeyo ayaa u bannaan. marka waa takhfiif kale weeye, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar wey, maalmo kale oo iyakuna tiradii maalmihii uu afuray u dhigma baa looga baahan yahay inuu la yimaado. lama dhihin waa laazim. markaasaa alle subxaana wa tacaala wuxuu sii geliyay haddana takhfiif kale, wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin. kuwa uu ku adag yahay soomku, kuwa uu soomku ku adag yahayna waxaa yana laga rabaa keliyeeta in ay quudiyaan qof miskiin ah. wa cala aladiina yutiiquunahu, kuwa uu soomku ku adag yahay ee mashaqo iyo sucuubo kala kulmahaya, kuwaas waxaa laga rabaa keliyeeta yana in ay quudiyaan yana wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin. maalin kasta oo maalmihii soomka ka mid a bedelkay soomi lahaayeen intay afuraan oo cuntadooda iyo cabitaankooda ay sameeyaan, in ay qof miskiin ah ay afuriyaan. bishu haddii ay 30 maalmood ahayd 30 miskiin inay afuriyaan, inay cunto siiyaan ay quudiyaan. haddii ay 29 ahaydna inay 29 miskiin in ay quudiyaan oo ay cunto siiyaan wey. wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin. dadkaasi waxay ku dhacaysaa yana dadka da-da ah ee waaweynaaday, ee jilcay, ee aan kari karin. waxaa kaloo ay hawshaa soo galhaya dadka xanuunada, waxaa loo yaqaana alamraad almusmina, xanuunka qofka yana la falgala ee aan daawo lahayn, ee dhakhaatiirtu yana ay u sheegaan xanuunkan inuu yahay xanuun qofkan yana daa'imahaya oo aan lahayn xad ama marxalo lagaga bogsado aan lahayn. marka halkaa waxaan ka qaadanaynaa qof kastoo muslim ah inuu waajib ku yahay yana bisha ramadaan inuu soomo oo uu la yimaado. qofkii kari kara, qofkii aan kari karin yana meesha isagoo ka baxaya. waxaan rabnaa in yar inaan waxoogaa aan yar yana bayaamino mariidka iyo musaafirka.
yana uu u bannaan yahay inuu yana afuro iyo kuusan u bannaanaan karin maxay yihiin. waxaa haddaan aan ka bilowno musaafirka, qofka musaafirka ah ee uu u bannaan yahay inuu afuro, kow safarka uu safray waa inuu yahay safar xalaal ah, macnaha waa inuusan safar macsiya uusan safrin. hadduu safarku safar macsiya yahay yana ma bannaana inuu qofkaasi afuro. waxaa kaloon bannaanayn inuu yahay safarkaasi safar yana qish iyo xeelaysi uu ku jiro, waa ina dhacdaa oo dad badan baa la sheegaa inay ka dhacdo. qofka kolkay bishu soo gasho yana bedelkii uu soomi lahaa buu safar buu aadahayaa, holiday buu aadahayaa, dalxiis buu aadahayaa, yana meelo fogfog buu aadi. ujeedadiisu waxaa weeye inuu yidhaha bisha ramadaan waxaan ahaa musaafir oo uu afuro. kaasi ma banaana, kaasi waa qish, waa khiyaamo wey, ma ilaahay buu khiyaamaya qofkaasi, yana ma banaana. marka safarkaasi waa inuu yahay qofkaasi safar mubaaxa oo dana iyo xaajooyin yana uu leeyahay ama uu islaamku uu leeyahay uu u safrahayo, dana islaam inuu u safray ama uu dana shaksi ah oo uu isagu leeyahay uu u safray, laakiin wax bannaan oo mubaaxa ay tahay. safarka horta uu bannaananayo in la afuro, kaasi waa kow. laba, safarkii waxaa loo qaybinayaa mubaaxa naftiisa saddex darajo ayaan u qaybinaynaa. safar oo qofku haddii uu yana uu soomo ay ka dhalanayso halaag uu ka dhalanayo, oo qofkii in uu dhibaato badanba ku dhacdo ama uu u dhinto oon iyo gaajo iyo haraad uu u dhinto ay dhici karto, taasoo kale ma bannaan inuu qofku uu soomo. waaba xaaraan bay ka tahay inuu qofku xaalada isagoo ku sugan inuu soomo, sababtoo ah taysiirkii ilaahi subxaana wa tacaala ayuu jabiyey, ruqsada ilaahi buu jabiyey, markaasuu halaagay naftiisii. qofki inuu naftiisa halaagana yana uma banaana, walaa tulquu biaydiikum yana ila tahluka. arrintaasi waa ta koobaad. ta labaad waxay noqonaysaa in uu yahay qofka hadduu safro safarkaasi haddii uu ku soomo inuu yahay soonkaasi inuu culays iyo dhib badan iyo rafaad uu kala kulmay. halaag ma keenayo, laakiin rafaad iyo dhib ayuu kala kulmahayaa. kaasna ma banaana inuu afuro ayaa kaana loo baahan yahay, oo nabigu sala alla alay slm waqtigiisii ayay xaalada noocaas oo kala dhaceen. nabigu waa kanuu leeyahy sala alla alay slam, laysa min albiri alsiyaamu fi safar, yana biriga iyo wanaagga kamid ma aha in la safro, yana kolkii in la soomo kolkii safarka lagu jiro, waa qofka ay culayska iyo dhibku uu ka haysto. waxaa ku yimi safarka fudud ee dhib yar oo ah inuu qofku safrahayo maalmo qabow, yana uuna ku safrahayo gaadiidkan hadda la isticmaalo oo kale ee sahlan oo kale. qofbaa diyaarad buu raacahayaa, magaalo aan aada u fogeyn buuna gaar iyo u safrahayaa, yana wax dhib iyo mashaqo ah yana kalama kulmahayo. yana xukum ahaan way u bannaan tahay inuu afuro, sababtoo xukmulmusaafir wuu haystaa. sababto musaafir waxaa weeye qofkii gurigiisii iyo meeshii deegaanka u ahayd ka baxa, meel kalena yana aada masaafa oo yana inta salaada lagu qasriya oo kale ah, oo taqriiban yana 80 ilaa 85 kilomitr oo kale yana noqon karta. hadduu intaa qofku uu safro macnaheed musaafir wuu noqon karaa, musaafir uu yahay, wayna u bannaan tahay in uu afuro. laakiin waxaa u fadli badan in uu soomo qofkaas oo kale liasbaab. sababta koobaad, kow soomkaa uu soomahayo wax mashaqa iyo culaysa kala kulmi mahayo oo way u sahlan tahay. laba, soomka uu soomay wuxuu waafaqay bishii fadliga badnayd ayuu soomay oo ajirku ziyaadada uu noqon hayay. saddex, yana wuxuu waafaqay yana dadkii muslimiinta ahaa ayuu la soomay xilligii ay soomanaayeen, oo taa qudheeda yana muwaafaqatu jamaacati lmuslimiin yana waxay keenaysaa yana wanaag baa ku jira. yana afar, ibraa'u dhimma ayuu sameeyey, oo qofkii soomka haddii uu yara dib baan ka qadayn, yana isagoo kari kara inuu geeriyoon karaa dhici karta, inuu xanuun ku iman karaa dhici kara, inuu qadii uu qadayn lahaa inuuba dib uga dhacayaa dhici karta. marka haddii soonka uu soo dedejiyo ibraa'u dhimma, dhimadiisii ayuu beri yeelay oo wax loo haysto ku xidhan ma jiro. marka asbaabaha daraaddeed inuu qofku soomo hadduu safarkiisu uu fudud yahay ayaa u fiican oo wanaagsan. maradkana saasoo kale, maradka waa la fiirinaya qofka mariidka ah. kow haddii uu maradkaasi haddii uu qofku uu la jiran yahay,
si ahaanba magac maradba haddii uu wato waa afuri karaa. marba culimada qaarkeed xad waxay gaarsiiyaan xataa haddii far laga hayo ama ay dhag xanuunayso yani oo mariid ba la dhihi karo waa afurahayaa, laakiin waxoogaa yar mubaalaqa ku jirta yani midaas. marka maradka waxaa la fiirinayaa ma yahay maradkaasi marad haddii uu qofku uu ku soomo yani culays iyo dhibaato yana u keenahaya ma yahay mise ma aha. haddii uu yahay xanuunka wax ku kordhin kara xanuun ama caafimaadkiisa inuu dib u dhaco yana keeni kara, qofkaasi waa afurahayaa, ma soomahayo, waa afurahayaa. laakiin haddii uu yahay yani xanuun iska fudud oo kale sida hargab oo kale, madax xanuun oo kale, hadduu xanuun iska fudud uu yahay oo qofku uu u soomi karo, waxaa fiican inuu isagana uu iska soomo yani asbaabtii aynu musaafirka u sheegnay oo kalena yana ayaa iyadana lagu tacliilinayaa. marka asbaabaha noocaas oo kale ah baa ka dhalanhaya safarka iyo maradka labadaba. ama maradka musminka ah ee qofku daawooyin uusan joojin karinba uu qaato, ama yani qofka da-da ah ee jilcay ee hadduu soomo laga yaababa inay xaaladiisu dhammaato, kaas waxaa u yaalla xukumkii hore oo wacala aladiina yutiiquunahu weeye, kuwa uu ku adag yahay buu noqonaya marka tafsiirkeedu wacala aladiina yutiiquunahu, kuwa ku adag yahay. sababto wacala aladiina yutiiquunahu laba macno ayay qaadanaysaa. mar waxay noqonaysaa wacala aladiina yutiiquunahu kuwa uu ku adag yahay, marna waxay noqonaysaa wacala aladiina yutiiquunahu kuwa kari kara yay noqonaysaa. marka sucuubana way noqon yana istitaacana yana way noqon haysaa, labada macnay kala qaadanaysaa. marka intaas waxaan ku joojinaynaa insha allah tacaala axkaamta uu ilaahi subxana wa tacaala inooga sheegay yana bisha ramadaan oo looga baahan yahay qof kasta oo muslima inuu la yimaado. qof kasta oo muslima oo qaangaadh ah, qof kasta oo muslima oo qaangaadh ah oo caaqil ah yana oo qaadir ah oo taahir ah yani xaydkii nifaaskaa soo galahaya, waxaa waajib ku ah inuu soomo ayaa waajib ku ah. qofkii soomkaa diida oo soomi waaya xukumkiisu muxuu noqon? haddii uu juxuud iyo inkaar iyo inuu waajib yahayba uu u diidan yahay inuu soomo, qofkaasi laa shaka wuu gaaloobahaya, murtad buu noqonaya hadduu kolka hore muslim ahaa. laakiin haddii uu qofku og yahay inuu waajib yahay, laakiin yani shaytaan iyo shahwo ay ka qaalib noqotay oo isagoo og inuu waajib ku yahay soomi waaya, naftiisuna ay dareensan tahay inuu dembi iyo yani khalad uu ku jiro, qofkaasi waa faasiq, waa caasi, laakiin waa kaafir lama dhihi karo sida ay yani culimadu isku waafaqeen. ilah waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala inuu ina waafajiyo siyaam shahr ramadaan. ilah waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala inoo sahlo. ilah waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala inuu inaga aqbalo oo miisaankeena xasanaadka uu ku daro, inagana dhigo kuwa loogu dambi dhaafo, yani naarna lagaga xoreeyo, jannana lagu geeyo. wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam.